kamid ah beelaha Jaangooya mustaqbalka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dega gobolka Salal gaar ahaan degmada Xariirada ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cali Aw Cabdi waxaa hambalyadan goobjoog ka ahaa egas xildhibaan hore Caateeye Xaaji Cismaan Muumin Maydhane iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka dhalinyarada beesha Baabar Cali waxaana hadaladoodii kamid ah anagoo ah beesha Baabar Cali degta gobolka Salal gaar ahaan degmada Xariirad waxaan maanta halkan iskugu imanay xafladan quruxda badan ee ballaaran si aan u ogtahay u muujino dareenkayagii ahaa isbedel doonka in kuna guuleysanay xisbiga wadani aan kula soo baxnay oo maanta ma noqday xisbi muxaafida oo maxay ahaanay Soomaaliland oo dhan maamuli doona oo markii hore mucaarad lagu sheegay beesha sida quruxda badan ee ugu dadaashay ee la soo baxday ee meel walba geysay ee sanduuq walba kala soo baxday ee buur iyo banaan ku casuutay ma ahayn ka wararka waxaan balyo ugu direynaa musharaxa ama madaxweynaha imika xilka ku soo baxay ku guulta doorashada ee Soomaaliland hambalyo xilka Soomaaliland ku doortay waxaan leeyahay Allah ku asturo bulshooyinka Soomaaliland waxaan u rajeynayaa inay ka soo kabsan doonaan dibtii ka soo gaadhay maamuladii hore ee xisbiga kulmiye inay ka rasan doonaan ayaan u rajeynayaa waxaan ka sheegayaa beesha halkaas ku timiday ee beesha Baabar Cali waa beesha degta gobolka Salal gaar ahaan degmada Xariirad runtii waxaan nasiib badan xisbiga ay raacaan ama u codayaan baa nasiib badan waayo 2010 markii Seylaci ku soo baxay Siiraanyo ay xilka kulmiye qabteen waxa Baabar Cali baa raacdo codaysay xisbiga kulmiye sidii waxa ku soo baxay Siiraanyo iyo Seylaci 2017 doorashadii labada kulmiye galay ee Siiraanyo meesha kaga baxay oo lagu dooranayay Muuse Bixi iyo Seylaci Baabar Cali dhamaanteed waxay codaysay xisbiga kulmiye sidii uu xisbiga nasiib ku yeeshay oo uu ku soo baxay oo ku noqday xisbiga oo Muuse Bixi madaxweyne ku noqday maanta joogno nasiib wanaag Baabar Cali waxay taageertay xisbiga wadani sidii uu Cirro ku soo baxay halka waxa ka garan karaa ama oran karaa hadba madaxweynaha Baabar Cali raacdo inuu ka nasiib badan yahay musharaxiinta kale ee u tartamaya xilalka dadkii xisbiga wadani laf iyo maal iyo muruqba soo geliyay baanu nahay wayna agtaala DRC-dan ka codaynay codkeegana tilmaamay horta waa qodobka koobaad talabaad annaga oo dadaalka hore u sii galay waxaan sii raacnay hadala hadalkii madaxweyne ku-xigeenka haw ku dhawaaqay inaan taageerno xisbiga wadani labo waxa kale oo dhan sii raacnay ogaaska beelaha Samaroon erayoo yiraahdo sii raacnay waana fulinay ilaahayna waa nala qabtay nasiibna waxaan hore ugu lahayn jirnay xisbiga raacnay waa guuleysan jiray uuna guuleystay waana hambalyeynaa horta shalay annaga Muuse u codaynay maantana annaga ka codaynay anoo ku hadlaya afka dhalinyarada beelweynta Baabar Cali khaasatan inta degan gobolka Salal siiba degmada Xariirad waxaanu si cad uga ololeynay xukuumaddii macangaga ahayd meel baanu saaray xukuumaddii hiiliyaho waxaanu la garab istaagnay urur siyaasadeedka ka ee xisbigii wadani si muglina waanu uga soo baxnay waxaanu maanta si cad ugu mana sheeganaa haddaan nahay beesha Jaangooysa masayrka gobolada galbeed beelaha degan beesha Jaangooysa iyo mustaqbalka siyaasadeed horay waanu sii sheegnayo uqaashayada waxa weeyaan yaa hadalan horay aanu sii haynay baa jiray oo dardaarnahay war meeshaan raacnun baa cuslaata waxa weeyii dadku way kala mugiyay miisaan culus baasha aad isku ma wacnayn xibada laakiin waxa weeyii handana markay ka tagi weydo baashu xaqiiqada la tagaa ay baashu ay noqoto xiniya taabadka maanta waxaanu leenahay madaxweynihii hore isagana meel khayr leh Allah geeyo laakiin waxaanu leenahay daraad wuxuu noogu dhuntay Seylaci maanta sagaroon buu noogu soo baxayo waynu ka codaynay labaad waxaan habaleynayaa madaxweynaha xilka ku guuleystay Cirro
waxaan ku leeyahay allah ka dhigo kii wadanka wax tara oo ma aragtay ballanqaadkii maxay ahayd sheegayna halka ka oofiya xaradoo arkaysaa codkoogu way muujiyeen dhowr yar oo qof oo kulmiyaa ka soo baxay inta kale waxa noqdeen waa wadani waxay ku doorteen waxa weeyna wax qabadkooga u saxdo weeyaan horta aan ku hambaleenayaa yaana horta daliil wax ku soo jeedine hambaliyaan ku leeyahay madaxweyne cirre beelweynta baabiceli waxay qaateen go'aankii madaxweyne ku-xigeenkii hore uu kuu sheegay ee uu sheegay tolkii oo adigana kuu sheegay ma garanaysaa waxaan ku leenahay go'aankaas waanu ku guulaysanay waanaka kugu soo saarnay codkayaga waa codka baabiceli waa codka samaroon way ku taageersan yihiin adna waxaa weeyaan ballanqaadkii waa inaad oofisaa hambalyaana ku leenahay madaxweyne mudnaadayo mugdigii naga saarayo maanta waan ku sugaynay madashaan ku sugnayne midigtoon ku salaaniyo soo dhowow madaxweyne afartii mahdaboodiyo ma baan kugu ducaynaye ilaahay midigtaadana ha u dhibo muftaaxay salaanka dib waxaan hambalaynayaa madaxweynaha ku soo baxay xilka ee sida waajibkiisa annaguna ololahaan ugu soo gudanay waxaan leenahay madaxweyne waxaad noqotaa kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfacayay bulshada kala daadatay kii isku keenayay hambalyaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan hambalya leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliland ee isbedel doonka ka wada shaqaysay dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo guushii aan u ordaynay waan gaarnay gebi ahaanna waan ka hambalyeynaya waxaan intaa ku darayaa ugaaska beelaha Samaroon oon qaadanay maxtaladii uu noo soo jeediyey iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Saylici oon isna go'aamadiisii uu soo saaray aan halkii uu la rabay aan marinay taasna waxaan leeyahay waa guul soo hoyatay beesha Bahabar Cali dhammaantoodna waa maanta hambalyada aan halkan ka dirayno sababtay weeyaan waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee ku soo baxay codkii aan si heel iyo hoolaba ugu hurnay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro dadkan dhowr fariimood u baadhigooda soo gaaray waxa soo gaaray fariintii ugaaska waxa soo gaaray fariintii madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici waxa soo gaaray fariintii Cabdiraxmaan Ciro safarkii walaaleeye waxa soo gaaray fariintii Cabdiraxmaan Ciro safarkii walaaleeye waxa kale oo soo gaaray fariintii Maxamuud Xaashire Xariirad dadkii ugu horeeyay la kulmaanaha haddaan wax kasta dadka u sheegno waana looga horeeyay horta ciyaalku ilmaha yar kare waa laga horeeyay oran jireen waxaanay ka run sheegeen dadku wixii ay rabeen markaan ogaanay inaanu qofna ka leexan karin fariimaha kulule u soo dhacay kuwaadan qaadanay qaatay fariintii Cali Xaamid uga soo diray meelo badan waxay si dooran u qaateen fariintii uu keenay Rooble iyo Ibraahim ay labaduba Xariirad 10 jeer ugu soo noqdeen dhammaan way ka run sheegeen madaxweynuhu waa guuleystay waa mahadsan yahay madaxweyne ku-xigeenkii waa guuleystay midigtiisa aanu nahay midna kale aan igu daree madaxweynahana hambalyaa leenahay madaxweyne ku-xigeenka